ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno wafdi oo la socda ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ilaa 40 arday oo wax ka barta Jaamacadda Golis University ee magaalada Berbera. munaasabadaasi oo lagu qabtay Hotel Demen ee magaalada Berbera isla markaasina ay ka soo qayb galeen ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiinta ardayda dad kale oo martisharaf aqoon-yahano cunqaar wax garad ayaa ugu horeyn hadalkaasi uu ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacaddaasi Naasir Cali Shire waxa uu ka waray ardaydaasi waxbarashada ay dhameysteen kulliyadaha kala duwan iyo muddadii ay u soo samraayeen waxbarashada. waxaan oran karaa oo ka xusaya halkan oo mahadnaq gaar ah iska leh dawladda hoose ee Berbera ee uu hogaaminayo maayirka Cidin iyo xogayihina inagala fadhiyo waxaan leeyahay runtii sacab gaar ah ayay mudan yihiin taakulada gaarka ah isla bartaaga ay siiyaan madax. waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa maarayaha wakaaladda biyaha oo isagana arday halkan iminka fadhida oo aan leeyahay isagana sacab gaar ah siiya maadaama ay lacagta ka soo bixinayeen. waxaan meesha ka marnayn jaamacadda Golis ee Berbera oo iyaduna runtii ardayda ka qayb qaata inay iskoolashayso qaar ka midna maanta halkan ay ka qalin jabinayaan. Golisna siiya sacabteen. mudanayaal iyo marweyn waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo aad tiraahdo jaamacadda Golis maadaama hawsha intaa ay qabatay abaalkeedu muxuu noqonayaa ama waajibaadkii saarnaa ma ka soo baxday. haddaan ka jawaab waxaan oranayaa haa waajibaadkii saarnaa way ka soo baxday maadaama 7 sano gobolkan ay joogtay aanay ahayd jaamacaddii u horeysay ee gobolkan laga aasaasay. sidoo kale hadalkaasi uu ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolku ayuu isaguna hambaliyo u soo jeediyay ardayda qalin jabisay. halkan aad iyo aad waxaan uga soo dhaweynayaa waalidiinta dhashay ardaydan maanta ka qalin jabinaysa in xafladooda u fadhiyo. aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa iyo macallimiintooda iyo maamulka jaamacadda oo ah gudoomiyaha xildhibaanka professorka. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay aad iyo aad farxad gooniya bay noo tahay maanta. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa hadalkaasi uu ka jeediyay waxa uu ku dheeraaday waxbarashada iyo qiimaha ay u leedahay guud ahaan nolosha aadamaha iyo sida loogu baahan yahay ardayda waxbaratay inay dabaqaan wixii ay barteen oo laga arko dalka guud ahaan. waxa maanta aan sharaf weyn ah inaad ka soo qayb galo qalin jabintii lixaad dafcaddii lixaad ee ka qalin jabisay faraca jaamacadda Golis ee gobolka Saaxil magaalada Berbera. aad iyo aad bay runtii ugu tahay sharaf. waxaan isleeyahay waa markii labaad aan imaado aan ka soo qayb galo qalin jabinta. waxaan runtii marka hore hambalyeeynaya oo ducay hambalyees ku darayaa dhalintaan ka qalin jabisay saddexda kulliyadooda kala goonida. waxaan leeyahay waa soo dadaasheen hambalyo mabruuq alf mabruuq bale. waxaan kaloo aad u hambalyeynayaa jaamacadda iyo macallimiintii iyo maamulkii runtii idinku soo dadaalay ee halkeedii soo gaadhsiiyey iyagana aad iyo aad baan oo hambalyeyn ugu mahadnaqayaa. waxaan kaloo hambalyeynaya waalidiinta iyagoo tabaca dheer inoo soo galay ilaa maalintaada iskuulka fasalka koowaad haydeen ilaa maanta oo kala isu geeyo 16 sano noqonaysa. runtii dadaalka weyn ee waalidkiin la soo galeen waalidkiina aad iyo aad u hambalyeyn jasaakumullah khayr baan leeyahay. intaa kadib Saaxil ama Berbera waxaan isleeyahay qolada maanta qalin jabinaysa ama ardayda fursad u heshaan wax ku barato waxay qolo ka dambaysay iyo kana si wanaagsan tahay. munaasabadaasi sidoo kale hadal waxa ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo dad kale oo martisharaf oo isugu jira cuqaal wax garad aqoon-yahano iyo dad kale oo martisharafa. maaha markii ugu horeysay jaamacadda Golis ay ardayda ka qalin jabisay haasaha iyo
2012 jaamacadda Golis waxay ahayd horyaalka jaamacadaha ka jira xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. Cabdisalaan Xariish Cusmaan, TV-ga qaranka Somaliland, Berbera.